السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا كحران channel كينا Somali Universe كسو دوادا مركليو برنامج كيني أريمها بلشدة أسبوعا برنامج كينو وحان كسو قادن دونا نين guursaday 13 naag isla markaana hal jeer wada qaaday uur balse inta aanu gudgalin ka hor barnaamijkeena haddii midaanay tahay booqashadaada kugu wareysay channelka fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto aadna kuma tobanka notificationka si ay ku soo gaaraan fiidiyoodii ugu dambeeyay aan soo upload garin dadka intooda badan waxay u ordayaan in ay galaan liiska World Record Guinness iyaga oo sameynaya waxyaalo cajiib ah taasi oo noqon karta waxyaalo fajac ah hadaba maanta barnaamijkeenu waxaynu ku soo qaadanaynaa 6 qof ee ugu yaabka badan dunida iyo recordka ay ka diiwaan gelisay World Record Guinness oo uu ka mid yahay ninka guursaday 13 naagood isla markaana hal jeer uur wada qaaday Jim Amington waxa lagu tiriyaa ninka ugu da'da weyn ragga dhisa murqahooda isaga oo jira 15 sano ayuu bilaabay in uu murqihiisa dhiso waa uu sii waday ilaa uu ka galo liiska World Record Guinness ee ninka ugu awood badan caalamka isaga oo xilligaasi da'diisu ahayd 48 sano Ayana Williams waa naag Amerikaan ah kuna dhalatay gobolka Texas ee dalka Mareykanka waa naagta ugu ciyaha dheer dunida dhirka ciyaha faraheeda waxa uu gaarayaa 10.9 inji sanadii aynu soo dhaafnay ee 2018 ayay World Record Guinness u aqoonsatay naagta ugu ciyaha dheer dunida iyadoo oo sheegtay in ay ciyaheedu barbaarinaysay ku dhawaad 24 sano Penny Harlem waa heesaa mulaxam modeliste waa ninka ugu yaabka badan xagga timaha jiritaankooda iyo shallaytoodaba isaga iyo gabar uu dhalay oo jirta 6 sano ay soo bandhigeen muuqaalkan cajiibka ah oo dad badan ay la yaabeen Harlem Kaur waa gabar u dhalatay dalweynaha Britain balse asalkeeda ka soo jeeda dalka India Harlem Kaur ayaa go'aansatay inay sii dayso garkeeda maadaama ay awood u yeelan weysay inay iska jarto oo muddo kadib ku sii badanayay sidaas daraadeedna ay go'aan ku gaartay inay sii dayso garkeeda kaas oo ugu dambeyntii noqday garka ugu qurxoon dunida Lee Long Long wiilkan waxa uu awood u leeyahay inuu jarjarta ku fuulo madaxiisa wana soo dego kaas oo ay adduunka oo dhan la noqotay fajac lana waayay qof barbareeyay rikoodkaasi runtii waa arrin aad iyo aad cajiib u ah taas oo aan maskaxda ka dhaadhicinin in madaxaaga aad ku fuusho jarjarada ugana soo degto halka dadka qaarkii ay dhib ku tahay inay lugahooda ku fuulaan kuna soo degaan Tishan Shaw ninkan waxa uu ku nool yahay dalka India wuxuuna guursaday 13 naagood 13 kaba isku mar ayay uur wada qaadeen ninkan waxa uu rajaynayaa inuu rikood ka galo baal dahabi ah uuna ku guuleysto abaalmarinta World Record Guinness